الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه أما بعد waxaynu ku dhex jirnay masalooyinkii ku saabsanaa soomka iyo axkaamtiisa iyo aqoontu u yeelanayo muslimka soomaya masaa'ilka waxaa ka mid ah qofka sooman waxyaabaha ku imanaya ee maalan dhaawaca uu dhaawacmay oo dhig baa ka yimi ama waa iska sambooriyey ama biyaaba ku cararay intuu sidheen ku luqluqo ayay qasab ku jeedheen waxyaabahaas ma jebinayaan soomka sidoo kale waxa ah marka uu qofku dee suuqa soconayo boor baa galaya markuu warshad ka shaqaynaya daqiiq iyo faarad iyo wixii la mid ah waxbaa galaya waxyaabahaasi laa yuftir waxba ma afurinayo liannahu laa yumkinu taxarusu canh ma suuragalaha inuu iska ilaaliyo candhuuftii oo kale waaba wuxuu jidiinka ku qoynayay qofku dadka qaarkood baa candhuufta tufo waan filaya hadda in laga ilbaxay xataa hadduu ururiyu liqo wax dhibi kuma jiro iyadana waxaan dhibaato lahayn inuu qofku udgoon isticmaalo iyo cadar iyo cuud qiiqaya cuudkuu qiiqayana halkan uu joogaa cadarkii wuu isku buufinayaa mid kale wuu ursanayaa waxyaabahaasina dhib ma laha oo dee lama odhanin nafta cidhiidhi geliye cunadii iyo cabiddii baa loo diiday qadiyadda toobinka iyo dhiig la yska shugo culimmadu waa ka murmeen weliba toobinka gaar ahaan markaa iska dayntiisaa fiican asxaabiguna wuxuu leeyahy waxaana loogu diiday soomkiibaa qofkii uu ka daciifaya markuu daa dhiig iska saaro saa daraaddeed mar haddii khilaaf weyn uu ka jiro xagga culimmada dhexdooda ah inuu iska daayo ayaa u wanaagsan waxyaabaha kolley aynu xusi lahayn waxaa ka mid a qofku hadduu wax cuno oo uu cabo isaga oo malaynaya inaanu waagi caddaanin oo markuu eegay wuu ka yaro shakisanya wuxuu isleeyay weli waagu ma caddaa wuu baryey ma baryin wuu iska sii wadan karayaa oo dee adaanku wuxuu ka turjumayaa wakhtiga oo gaadha marka haddii uu joogo meel isagu wakhtiga ilaalinayo oo uu u caddaan waayo wuu iska cuni karayaa ibnu cabaas baa wuxuu leeyahy axala allaahu laka alakla washurba maa shakakt fakul wakul xataa laa tashuk nin baa su-aalo waxa uu leeyahy cabdillaahi ibnu cabaas buu weydiiyo mararka qaarkood waxaan suxuurtaa iyada oo aan weli shakisanahay oon leeyahy tolow miyuu caddaaday mise muu caddaanin waagi markaa wuxuu ihi ilaahay cunadii iyo cabidda waa kuu xalaaleeyey iska isticmaal ilaa shakiguu kaa baxayood wax cad arkayso waayo aayaddii baa waxay leedahay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri cuna oo caba ilaa uu caddaado markaa shaki looma baahna masaa'ilkaa waxaa ka mid a haddii uu qofku cuno isaga oo moodaya inay qoraxdii dhacday kadibna ay u caddaatay inaanay qoraxdii dhicin maalintaa wuu soo qallaynayaa inta u hadhayna wuu afxidhnaanayaa aayadda aynu soo sheegnun baana daliilo aho ilaahay wuxuu ihi uma atimu siyaama ila leyl waxay iska cuntaan oo iska cabtaan habeenkii marka waagu caddaado dhammaystira ilaa qoraxdu dhacayso waagu markuu caddaado laga bilaabo ilaa intay qoraxdu dhacayso heerkii xaddii ilaahay inoo qabtay may suuragelin sidaa daraaddeed culimmada islaamka aqlabkoodii inta badani waxa ay leeyihin mar haddii qoraxdii oon dhicin qofkani uu cunay oo qoraxdii ay muuqatay intaa hadhayna wuu afhaysanayaa kadibna wuu soo qallaynayaa maalintaa masaa'ilkaas waxaa ka mida ruuxa dumarka ah ama inanta yare haddii ay qaan gaadho kadibna ay iska khajisho maalan dhiiggii caadada heshay waxay ka xishootay inay sheegtaba
oy waalidkii u sheegto way iska cunaysuun sanadiya lababa markii dambena dee waxaa caddaatay dee in lagu leeyahay soomkii intaasoo aanay soomin kol haddii ay qaangaadh ahayd may soomin dadkiina umay sheegin way cunaysuun marka waxaa laga doonayaa qallihii muddadaa ay qaangaadhka ahayd ee ay iska cunaysay waanay dhici kartaa daayarta haddaan lagu wacyigelinin qofkii yaraa siduu ku qaangaadhayay qaangaadhkiisa midna kama warramayo waalidkuna inta badan ma waraysto markaa inantii yaray sanadkan way qaangaadho xaydkiiba heshay cidna umay sheegin cidina may ogaanin kolka dambe la ogaado waa loo sheegaya waxaa la odhan doonaa qallaha waa lagu leeyahay soo qallee waanay toobad keeni doontaa ile qof weyn oo qaangaadha bay ahayde haddii uu soomku sunno yahay masaa'ilkii dumarka inuu galee ruuxa dumarka ahi waxay soomi kartaa iyada oo uu u ogol yahay oo ay ka idan qaadatay xadiid saxiixa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa ku faraya ruuxa dumarka ayay soomin iyadoo ninkeedu uu joogo fasax la-aan ila nafteedii buu ka dooni karaa hawshii baa ku cuslaan karta markaa soomka sunnaha ah fasax bay u weydiisanaysaa ninka hebelo waan soomayaabay leedahay soomkii sunnaha ee caynka ahaa isaguna waxa fiican kol hadday ruuxdeeda dhisayso ay qofkii dadaalayso inuu la dadaalo aanu u diidin haddaan duruuf adagi jirin ruuxa dumarka ah haddii ay caawa ogaato inuu ka go-ay xaydkii ka dhammaaday siyaabaha ay dee ku ogaanaysa iyadaa garanaysee waxaa waajib ku ah aroorta inay soontay soomkii bilowdo qadiyadda maydhashaduna wuxuunay kala mid tahay qofkii jinaabada lahaa oo ka jinaabada leba wuu maydhan karaya waagoo bariyey marka haddii iyada habeenkii uu ka dhammaaday maydhasho la-aantu hor joogsan mayso soomka iyadoo weli aan maydhanin ayay bilaabi karaysaa soomkii arrintaana dumarku waa inay aada ugu baraarugsanaadaan sidoo kale taa cagsigeed ruuxa dumari waxay og tahay markay caadadeedii raacday iyo wakhtigu dhiigu ka iman jiray inuu caawa ka imanayo ayay og tahay ama berrita ka imanayo way bilaabaysaa soomkiioo joojin mayso ilaa ay dhiigga arkayso wakhtigeeda hadduu aroorta ku qiyaasan yahay uu ka iman lahaa iyadoo aragta mooyaane soomkii dayn mayso ee caawa way niyoonaysaa way suxuuranaysaa aroortana horay bay ka bilaabmaysa waxaa ka jabin kara un dhiigga ay aragto laakiin filitaanka ay filayso kuma xisaabtamayso masaa'ilka aynu xusi lahayn waxaa ka mid a ruuxa dumari sidaa ilaahay ugu talagalee dabiicigaa waana iskaga socoto oo aanay isku kalifin inay kiniin liqdo kiniinkaasoo ka joojinaya dhiiggii caadada iyadoo isla uba dadaal cibaadada looma baahna inay kiniin qaadato kadibna ay kala fogeyso dhiiggii caadada hadday sidaas samaysana uma fiicna laakiin soomkeedii wuu ansaxayaa mar haddaanay dhiig lahayn waxaana laga yaabaaba dee dhibaato inuu ku keeni karo caafimaad wax sharcigu ku kalifayna maaha qallaa lagu leeyay qallaheeda ay iska sugto masaa'ilkaa waxaa ka mida masalada 68 haddii ay ruuxii dumarka ahayd ilmo soo tuurto ama dhiciso dhiciskanaa la eegaya hadduu sawir bani aadam leeyahy oo cagi iyo gacmi iyo wixii kala baxsan yihiin dhiigga ka yimi waa kii dhalmada soomina mayso ilaa uu ka dhammaado laakiin haddii aanu wax kuusan u yahay oonu sawir bani aadam lahayn dhiciskan yare dhiigga ka yimi waa kii dhabar furanka oo kale soomkii joojin mayse way wadaysa labadaa xaaladood ayaa loo eegayaa masaa'ilkaa waxaa ka mid a haddii ay ruuxa dumarka ahi ee umusha ahi daahir noqoto iyadoo weli 40 bixin way dhacdaaye oo dumarka qaarkood buu dhowr cishaba ka socdaa dhiiggaasiye soomkii way soomaysa hadday dee kari karto caafimaad ahaan ila waxaaba laga yaabaa inaanu ilmaba jaqaynin ay tahay intanaynu sheegaynee dhicisay way dhicisay markiiba ilmana ma jaqayo waanay ka dhammaaday wixii dhiiggiiba way soomaysa hadduu haddana ku soo noqdona way joojinaysa ilaa 60ka way iska sugi karaysaa hadduu kusoo noqdo mar labaad
waayo dhiiggaa dhalmadu u badnaan ilaa 60 buu socdaa qayb ka mida fuqahada sida istiqraa ku gaadheen istiqraaqu waa tijaabo yar raacraac daliil cayimay ma jiro dhiigga caadadu intuu socdo laakiin culimadu waxay dadaal bay sameeyeenoo qaaradihii muslimku deganaa ayay waraysi la yeeshay markaa waxay ogaadeen u yaraan inuu noqdo hal mar uu soo butaaco u badnaana inuu 60 gaari karo waxyaabaha masaa'ilka aynu sheegi lahayn waxaa ka mid a ruuxa dumarka ah ama umusha ama uurka leh ee iska cuntay way soo qalaynaysaa wahiya kalmariid waxaanay la mid tahay qofkii bukay ee qur-aanka ilaahay uu ku sheegay subxaanaه wa tacaala nebiguna waxa uu yihi in allaha wadaca can اlmusaafiri الsawma wa shadra الsalaati wa can اlxaamili wاlmurdic الsawm ilaahay waxa uu ka daayay qofkii musaafirka ahaa soomkii iyo salaada barhkeed tii ilmaha jaqsiinaysa iyo tii uurka lahaydna waxaa laga daayey soomkii baa laga daayey marka kadaynta soomka laga daayey waxay la mid tahay kadaynta musaafirka laga daayey dee lagama dhaafin raashin bixina lama odhan ina musaafirku uu soo qaleeyaa marka iyaguna maadaamuu nebigu lifaaq ku sameeyey israaciyey qofkii musaafirka ahaa lagala mid dhigay marka ay ka baxdo xaaladan bay soo qalaynaysa sida qofkaa musaafirkiiba u soo qalaynayo masaa'ilkaa waxaa ka mid a masala 70 in haddii ninkii uu galmoodo xaaskiisi iyaduna ay ogoshahay labadoodaba wuu ku waajibayaa kafaara gudki labadoodabana way dembaabeen mar hadday isla ogol yihiin xaaskaa iyaga ah waxaa lagu leeyahay maalinkaa inay afxidhnaadaan inta u hadhay ilaahay uga toobad keenaan dembi bay ku dhaceen maalinkii soo qaleeyaan 2 biloodoo isku xidhiidhsanna soomaan bacda ramadaan haddii laakiin isagu uu qasbay ama iyada oo maskaxdeedu ay bedelan tahay kulankaa uu la sameeyey isaga unbaa lagu leeyahy kafaara gudkaasa iyada waxba laguma leh qowlka raajixay waa kaa culimada qaarkood baa waxay leeyihiin waxbaba ninka ruuxa dumarkaa laguma lahae xadiidkana markuu nebigu ninkii usoo cawday isagunbuu yidhi bixi islaantii qoyskiinana bixi muu odhanin qowlka raajixay laakiin waxa weeyaan xilka isaga saaran iyadana wuu saaran yahay haddii ay ruuxa dumarka ahi qalo bilowdo qalihii waajibka ahaa ama ay doontaba inay bilowdo ugama idan qaadanaysa ninka waxaa looga idan qaataa saa hore aynu usoo sheegnay soomka sunnaha laakiin soomkii faralkaa hebelow waan soomayaa ma taalo haddii iyadoo faralkii sooman uu yidhaahdo jabina ma dhegaysanayso oo amarkiisa mid ilaahay baa ka horreeyey haddii uu galmo ka doonana ma aqbalayso intaasoo dhammiba waa arrimo iyada ka xaaraan ahoo isaga aanay ku aqbali karaynin masaa'ilkii ramadaan intaasaynu kusoo gaabeen hal cashar baa inoo hadhay oo ah axkaamta uu leeyahay soomka sunnaha ah ee aynu soomayno hayra ramadaan walilxadiidi baqiyat bacda alyowm in shaa allah wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu